بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كسو دوادا ولا لها شرفت لو ميلك استاد شوكتان بموضوع كان عوانكي سنة دركتان أنا إذين فاهين دونو وبعدي سأم بقده سواحا كتير وحاوي سيدة أولا دقميسا حرير كقبوبي meel lagu tilmaamana sidaad arki doontid uu soo jirin qofka ama labada isqaba ama labada xiriirka uu ka dhaxeeyo de muddo wax isla waday way hadaba waxa ku dhici kara in uu soo wajaho xiriirkaasi ama guurkaasi ama qoyskaasi hoos u dhac anaha waxaan saan kugu faafinahay saad mowduuca u fahantaan hoos u dhac ba ku iimaanaya waxa laga yaabaa haweeneydii inay kala fahmi weydo kani ma ninkaadi aad taqaaniba كان ما جعل كادي أتقاني ما مسواقف كلا عصب يا سبحان الله يسبدل كان وامح نينكي سيدو كلا دينا حرير لبا دينا كو إيمانيا هل دينا كما سكوناي marka xiriir kaani ciid galay ama iska qaboobo hoos u dhac ku imaaday sida oo la dhaqmaysa waxaana arintaasi ku hoos jira sideebu ama muxuu u aamusayaa hadalka soo ku jecel sirta nolosha ogaada markaasaad waxaad ka baxaysaan xanuuno badan oo nafsaaniya markaad qodobkan fahamtaan markaasaad iska daynaysaan eedaynta dhexdiina aad is eedaynaysaan markaas haweeneydu u cududaaraysaa u naxariisanaysaa ninkeeda ninkuna sidoo kale laakiin dhibaatada jirta waxa weeye waxba maanaka mowduucaas iyo wixii la midka fahamka ma haysano magac baan u bixinaynaa hawshii marka ay salahayn dhibaato badan baa iimaanaysa marka xiriirada qaar say xiiso u hayaan oo qurux u hayaan oo la isku farxsan yahay ma sha Allah waxa iidi waxaaskaygi ninkaygi qofkaygi la isku hayaa mar dambe si kaliis waxa iimaanaya hoos u dhac iyo dabacsanaan iyo sheeko aan la fahmaynba gabadhu waxay soo istaagaysaa marka ninkan waa inacay ma ku nacay xaqiiqatan waa ogaanaysaa inuu ku nacay in kala halkaad ku reeyay ninka wuxuu soo istaagay islaantan way nacday ma ku nacday xaqiiqatan waa ogaanaysaa inay ku nacday in kale qof walba wuxuu leeyahay wiilka gabadha la socotaan way nacday way danaysatay way niman badan tahay way shukaansi badan tahay ma shukaansi badan tahay mise niman kale wadataa waa ogaan doontaa xaqiiqatan see marka xiriirka noocaas ah oo la dhaqmaysa muxuu ninku u aamusaya asagoo ku jecel muxuu kaaga aamusaya ma ka warramayo sida muxuu kula soo xiriiri laayay ma ka warramayo muxuu u aamusay asagoo ku jecel taas way midaan raba inaan ka warramo قعمة فرن يقلبي فرن لما نكسر دوادة ملك صوت كسرنا تيمبا بركة إلهي أدين كوكب بلابي الدقيسيجا إن شاء الله تعالى وجيت كنا نروح وياه سأني يسفهمنه يسفهمتان حقوق دنا الله صبحه وجيت كيقولون مر والبوح وياه ساعدا دنبي قف أوجدين عن مدنين ساعدا دنبيله أوجدين قف عن دنبيله هين ساعدا حرير يعني نرلكو هاي ستة كجبر بدين أو نمعدا فهمت وجيت كيقول سلاس خسارها ماشو كتير سادو فهمتي وي فائدة ماشو كتير سادو فهمتي وي أنا هدي على كورن جاي وحاني مكون فعيا مسكوا ما فعيا سادو فهمتي وي نلل عن قيمة كوجو فدين هدبق جلين وي معناه هذا نلشان ودبق القيمة كوجو فدين جت كواسيداس إن شاء الله تعالى مركب وحكي له قهرنا سؤال با وحلقي ويدي برنامج هذا كورن يدي سوق بيجي وهولها سي لنعيا كتابني قبل بدنا ما هو يوم بدنا وحي سويديين نينكي جيبه هدو أنا كلا جرني ما يتعلي هاي ما سوى قد حس الدعي ما إنعي ما الربا أنا قدام هو أنت عليه وأنا لسه كذا ما الدرهم يلي هذا هاي درينكي هو ينمو درينكي قوس نمو هوين نمو حلقة بقى قولك عرورت الناس قد حسيحده أسكن قولك لو اسكت سيحده نقول سيكلة تشيده أساس وكلا لحنيسة أنا إسفهمين بانك الحيسة ما حسمية ما ينو نعيباتاس سوينو جعليها سيدا درتاد مركان ولي بصدح وكبرنا ين هو إنك أردت يسوي دي هذا الكودي مقلي وافكري إن برنامج كان كيانو لو وداغو سو أوروري وحي لغيري سوغو كوبان نورتين سودغو أيان جعل استيساء وضرنا ستان إنن دنبي إسكاق قلين إن شاء الله تعالى gabadhuna ay stress u qaadinayso u fakirin waa daawo marka insha Allah ta'ala awalan marka ugu horeysa inuu ku jecel yahay in kale gadaal baan ka ogaan doonaa qodobkan shaari doono
sidee oola khitaabaysaa ama oola hadlaysaa waa ku jirtaa laakiin mid baan rabaa inaan kuu soo hormariyo dumarow dhageysta waxaa jirta haweenka dhammaantiinna waa taqaanaan caado ku dhacda oo bilay ah waxaaba loo yaqaanaaba caadadii bisha joogtada ahayd xaydka waa garanaysaa bil bay ku dhacdaa qaarkood bishii 2 jeer bay ku dhacdaa qaarba si ilaahay u abuuray laakiin qaarna inkastoo qaar ku dhici laakiin waa yar yahay laakiin inta badan dumarka caado iyo waxa ku dhacda arintaas haweenaysu ku dhicina shaki baa gala in haweenay tahay in kale Sooma su'aal baan kugu soo celinayaa markay caadadu kugu dhacdo maxaa dareentaa su'aal baan ku weydiinay in si mantiqiyan loo hadla la rabaa moogta maxaa dareentaa caajis baan dareemaa hadalka in lagu adkeeyaa nacaa صح صوتها waxa ilaahay ba salaada xataa ka cafiyay sababta moral ma haysid Sooma macnaha barashada weyn baa ku saaran Sooma marka xaydkii caadada kugu dhacdo xaydkii caadada iyo waqtigaas arinta ku saaran tahay ma mudda macnaha mar walba miya maya bishii hal mar 2 jeer bisha dhan miya maya bisha dhan ma bisha dhan mar baan bay isugu dhicin mar kaliya 15 bari isugu laakiin bishii waa mar Sooma inta badan markuu kugu dhacana waxa dareemaysaa xanuunay qaar dareemaanba rafaad bay dareemaanba qaadba si bay u dareemaan laakiin inta badan nafsiyan ayaa u xanuunsadaan haweenka arintaas xaaladda ku sugan yihiin lidaalika ilaahay soomkiina yiri iska dhaafa salaadiina iska dhaafa iska istighfaarsada bas moraalka loo dhisiyaa rabbi jalla jalaaluhu tabaaraka wa taala sida uu idin qiimeeyo soo ma aragtaan adoo umulu kuliyaha tukan ha soomin way daruufti ma saamaxayso الله وكاس تبارك وتعالى الحمد لله ده الله ودا ما هاد اسكله نو سيادي marka ayadoo sidaasa haweenku caadada ku dhacdo arinta dareemaan waxa jirta arinka la mido ragana ku dhaca yaani bishiiba mar 3 biloodba mar buu ninku isdaba maraa la fahmi kari waaya asaga dhanba waa mid kan dabeecadiisu isbedeshay si jeeda xiisihi badna hoos uga dhacay ninkana mar bay sidaa ku dhacdaa marka waxa la rabaa in la isbarbar dhigo gabar yahay ma jeclid xaaladaasi oo ku jirtid in hadalada lagu adkeeyo lagu qayliyo lagu caayo wax laga sheegaa ninkana waxa jirta dowradaasi ama xaaladaasi dumarka ku dhacda waqti asna nafsiyan u hooseeyo xaalad yaani energy-giisu waa isbedelay taasaa jirta marka horay marka midida ka saaran iyo daabka ninkaada wariyaay for wariyaa waa idin nacday raashalay soo gursaday jeclay maya waligii ninku sidaana xaalad waxa jirta sida xaydku bil aad kugu dhaco isu bedeshid ayaa asagana waxa jirta wax saameeyo cilmi nafsiga maraati kacay oo hadii alla kuuran yaa asagana isku bedelayo waxana loo yaqaanaa dowrka jacaylka ee ninka agtiisa meesha dowrka xaydka ee haweenka agtooda la dhaho kani wuxuu cilmigu u yaqaanaa dowrka jacaylka ee ragga agtooda maalin kasta uu ku macaanaanay ma jirto asagoo ku jecel ayuu ka sii jeesanaa waa tabcigiis ilaahay ku abuuray asagoo ku jecel buu ka aamusaya asagoo ku nicin dumarna adiga aad kala qaalisan tahay ayaa laga yaabaa inuu kaaba sii jeesada baad fahmi kari weydii asagoo ku jecel hadana xaskiisa aad tahay adduunka ka doortay ku difaacayo wax walba ku horayo laana maxaa yeelay dabcigiisa sidaan keenay dabcigiisa ku ixtiraam marka dabcigiisa ku ilaali marka hore kaga boodin telefonkana ha qaadan hooyo iyo aabbo iyo cid kale ha ween ninku sidiisuba qaacidana qaado wuxuu doonayaa noloshan routiinka ah inuu xoogaa yara bedelo jawiga yaani fasaaxad si xariga u seeta dheere ninka u seeta ha ka daba ordi mar walba hana ka daba qayleen ninka u seeta dheere wuxuu bedelayaa routiinka ay ku jiro qoyskan mar walba is ag joogtaan caruurtaan hooyadaan wuxuu rabaa inuu xoogaa bedelo jawiga soo gadisto muxuu sameeynaya saaxiibadiis waqti la soo qaadanaya meelahaas uu ka soo warwaramaya meelahaas uu ka murmurmaya meelahaas uu xoogaa waqtiga iskaga mashquulinaya jawi mashquul oo kale uu rabaa inuu galo haweeneydu maxay dhahaysaa marka aniga sheekadeeda iguma ka baxda miyaa bay dhahaysaa hore ka bilaabaysaa qaabka oo leeysa qaab ka duwan way kaas ana ku sheegay waxay bilaabaysaa xagad joogtaa hadda qaarkood way ka sidiraano video qadar meesha joogtaa ku arkay bay leedahay markuu wuxuu rabaa ninku sidiisaba caadiyan 99% iyo nus inuu routiinka iyo nolosha jawiga uu ku jiro xoogaa inuu bedelo hadhow ninka ku jeceli hadhow ku imaan wuxuu ku leeyahay wallahi waa ku xiisay wallahi waan ku jeclahay alla inta ka maqnaaba
inta ka maqnaaba wax kala dareemay buu ku dhaha xaaladani ninkaani haduu ku jecel yahay waa tagay joog gudi saaxiib la mashquulay meelahaas oo orday meelahaas u safray magaaladaas u tagay gurigaas u tagay xagaas oo orday qaraabo u tagay meelaha kale u tagay wuu soo daalay qalbiga mashquulay aduu ku yimid wallahi waa ku xiisay marka ninku wuxuu bilaabayaa tasarruf ama qaab dhaqan la yaabto qariiba adiga ka yaabay maskaxda ka qabsada sida darteed dumar waxaad hoosta ka xariiqdaan lama maarmaan ay tahay mar walbana ogaataan raggu inta badan xurriyad bay jecel yihiin dumar oo taa ogaada ninkaadana weydii xurriyad bay jecel yihiin ilaa jacaylka asaga ku soo doortay wuxuu rabaa min iskiis inuu kaaga jeclaado ka ilaaliyo inta badan marka dumarku kala fahmi mooyaan jacaylka lagu dhakrayo lagu khiyaamayo iyo jacaylka dhabta ah ee danahooda ka talinaya ma kala fahmayaan wixii hadal macaan oo jilicsan oo dhinacyo kasta laga dhigo ay u aragtaba wallahi waa kii khatarta bay leedahay ma u kaadinayso waqti siin mayso noloshan aqligeeda iyo hadii la kuuran yahay qalbiga ay hormarinaysaa aqliga dib u dhigaysaa hadoo fiirsada qalbiga iyo aqliga gabarya mar walba haddaan nin leedahay hadii lagu shaqaysadaba aqliga hormari qalbiga dib u dhig qalbigaada haduu wax jeclaado waa indalaaya haadaan buu ka tuuraya waxaad bari ka qoomaysan buu ku sabaya aqliga laakiin waxba ku miisaamo wuxuu leeyahay ظروفta ma saamaxayso aqliga raga inta badan waxa la rabaa marka inaad xorriyada ninka siisid kala fahamtid midka run ku jecel iyo midka ku khiyaamaya jacaylka marka halka inuu ku dayacmana waa macquul inuu ku soo siyaado ku soo noqdana waa macquul laakiin waxa jirta marxalad iyo xaalad la kala fahmo waa ciwaankeeda ma jacayl ba ma wanaag ba ma khiyaana ma masiiba ma nimba ma naagba lama kala fahmayaba dhaqanka ninkiisa xaalad waxaad gaaraysaa noocaas gabar yahay waana xaalada gabdho badan ma haween bay la soo xiriir mariyay yaani ana ku soo koobay waxaan ku leeyahay xiriirka qoys ama shukaansi ama mustaqbaleed xaaladaha ugu xun ee soo wajaha ma ahan kala tag in la isfuro ilaahay baa qoray hadii la isfahmi waa la isfuraa hadii la isfahmi waa la kala tagaayo shukaansigu waa buraya balami waa jabaya kala tagu sidiisuba xaaladaha ugu xun ee qofka soo wajahada ma ahan ee xaaladaha ugu xun ee xiriirka soo wajahada waxa weeye aadka u xunan oo masiibada waxa weeye markaad kala garan weydid xiriirkaadan iyo guurkaadan iyo jacaylkaadan xagaad ku tirisaa talo xageebu raacsan yahay ma midig ba ma bidix ba ma korba ma hoos ba horay ba ma gadaal meel aad ku tirisid lama garanayaba xiriirkan iyo jacaylkan markaas way markay ugu xun tahay meesay u dhaqmaysaa markaas ma inficaaliyaadkaada iyo xamaasadaada iyo heerkulkaada ay ciilka ku hayaad ka jawaabaysaa mise xikmad iyo cilmi iyo ukaadin baad isticmaalaysaa aniga iga dhigayso arrimahaas si fiican baan kugu kala dhigdhigayaa arrintaani wax ku sheega arkimaysid laakiin wax ku qiyaamo wada arkaysaa xaalad waxaad gaaraysaa ma waxaad ku sugan tahay jacayl oo ninkaadi weeye ninka kan mase waa saaxiib oo kaliya kani ma qof aad caadi isu taqaanaanba mase waa xaajigaadi nolosha iska soo doorateen waa kala fahmi waysaa waxaad kala fahmi waysaa marxaladaha qaar iyo waqtiyada qaar in aadan magacaadan u bixisa garan weydidba ciwaan aad siisid aad garan weydidba wax aad ku tilmaanta aad fahmi weydidba xiisa ma jiro ishiisa inay ku aragta ma jirto ma kala fahmaysid mana kala garanaysid ma qalbigiisa ku jirta ma soo waad ka baxday masiibo dhan ba halka taala lama kala garanayo calaaqadaasi xiriirkaasi oo la tacaamulaysa oo la dhaqmaysa kow ha isticmaalin go'aan kaligi tarisnimo xaaladaas marka gaartid go'aanka ciidanka ha isticmaalin go'aanka gaaris tala aan lahayn hoosta ka xariiq uu tagay uu ku daayay kaas hoosta ka xariiq ha isticmaalin kaas iska ilaali taa waxa ka daran oo la raba inaad iska ilaalisid oo ka sii halisan xiriir kale inaad ku dhacday waqtigaas xaqiiqatan waxaan ka hadlay waa wax jira badankiina waa adiga maqraati kacaysaan haweenay xaaladda markay marayso qaarkood ilaahay cafiye ayadoo la qabo bay waxay sameynaysaa waxay ku tilmaantay inay ninka ka masayrisiiso sawirro rageed bay soo dhiganaysaa ayadoo la qabay goor la furina aan la ogeyn ba waxa la arkayaa shukaansi ayadoo ku jirta iyadoo xiriir kala samaysanaysa ciilka iyo kulaylka haya ee xiriirkan damay uu ku keenay baana sabab u ah isma xakamayn marka kaanaha ku dhicin dumar badan ay ku dhaceen sababta waxa weeye qofka ku khasaari doono waa adiga oo kaliya waad kaliya aakhiriya adduunada ku khasaari adigu badaaca meel taale ma ahan oo tijaabin hadba loogu talagalay qof baa tahay nolol doortay
kana bixi kana siina wadi kara shakhsiyad baad leedahay shakhsiyadda ilaahay ku siiyay marka inta dayacdid badeeco la tijaabiyo hadba ninka ka masayrsiin ninka la xirir adoo lagu qaba sharaftaada marka aad ku ciyaartid qofka ka qasaaraya waa adiga kaas horta ha sameyn oo ka hore ka daran maxaa sameynaysaa marka xaaladaas kula soo wajahnaado sidaad u nooshahay u noolow karkabada iska dhaaf xagga ku bood fursad ka raadi xagga u orad wax ka raadi maya saad u nooshahay u noolow waa hadal weyn aqligaada shiil maskaxdaada dhalaali mira badanna kala soo bax saad u nooshahay u noolow ninkan muxuu sameeyay ma inta oo kaliya waxaan ahayn baa waxa siirka fudud waa ka guuleysan kartaa dibadda ha jiro ha kula joogo dhaqanka ha ku dhaqmo saad u nooshahay u noolow waa weligay taladan siinay saad u nooshahay u noolow maxaase u nooshahay ma ganacsataa ganacso caadi caruur miyaad tarbiyaysataa caruurtaada tarbiyayso ma waxbaa barataa waxaada baro buugaada wado ma hawlo kalaa samaysaa noloshaada u khaaska haa samayso si ma u nooshahay hadda haa markaa isqabtay si ma u noolay u noolow ha isbedeli ha xirin albaabka mar walba ha furnaa hadallada gabdhaha ama hooyooyinka la soxoyaa kamid ah markuu ninkii sidaan noqay ciil baan isku ridaabay tiri cuntada uma kariyo waa sii jeesta anna markaan laba biri xanaaqsanay waa anaaba raali geliyay tiri ma ahan dee waanaaba kuu sheegaya waxyaalaha noocaas ee dafdafta adag ku qasaaraya waa daalaysaa marka cimrigaadi baad dhaafaysa xitaa gogashaan u diidaabay ku leedahay maya maya kolkaasu seexana caruurtaydan la seexdaa cunto uma kariyo banaan ku socona ha samayn duqayntaad isku sii siyaadinaysaa qoyskaaduna waa sii xumaanaa ninkani meel baa laga haysta xoogaa wuxuu ku jiraa jawgii dowrkii xubbiga iyo jacaylka ayuu maraya xoogaa u kaadi bal yara seetada u dheeree muddadaad wadaysa waa tilmaami doonaa laakiin bal u kaadi ha degdegi alcajalatu min ashaytaan degdegu shaydaan buu ka imaadaa albaabkaada ha furnaado asaga ha u furnaado qalbigaada asaga ha u furnaado isku dayo samee waxyaalo badan tijaabi wax badan raadi lagu soo jiito xiriir aan xad iyo xuduud lahaynna ha gelin adoo isdhahaya xiriirka noocaan ee foosha xun ee dhibka badan isku hilmaansi ha gelin saad u nooshahay u noolow bas ha bedelin noloshaada waxa yaa laga dareemi dariskaadu isa ka dareemin qaraabadaada isa ka dareemin inta badan dumarku markay arrimaha ku dhacaan dariskooda dumarka la washaysa allah naaniga waa dhibanahay waa balad u waramaysaa kaasi waramay waliga noqo santuuq fulan oo uurkiisa waxa ku haysta waxa uu sameynayna ka fakaraya sida oo la hadlaysa maciil iyo caro ha way isbedeshay saasad yeeshay Soomaa miyaad dhahaysaa maya dhageyso waa laga maarmaan codkaadu inuu hooseeyo ninka TV-ga ka waramaya ama idaacada warka soo jeedinaya ama xayisiimaha sameynaya la soco codkan uu wax ku jeedinayo ma ahan codkan laftirkiisa wax xumeeya ee codka sida loo adeegsadaa wax xumeeya Soomaa gabar yahay codkaadu waa soo jiidasho mira ninkaada waa soo jiidan kartaa laakiin qaabka aad u adeegsanaysid baa xumeyn kara ama wanaajin kara laakiin codkaadu mar walba waa muqaddas taas ogow midda faham codkaadu mar walba waa muqaddas waa soo jiidasho og yahay qalbiga ragga waa taaban og yahay laakiin qaabka aad u adeegsanaysid isluubka ayaa waxaan hirgeliya ama xumeeya la budda marka codkaadu waa inuu yahay cod hooseeya marka la hadlayso cod degan oo laga fakaray oo qof weyn ku hadlay iska dhig baq shalay soo fariisatay aniga marka fahmay maya adigana waa arinta way ku waalaysa asna waa sii waalaysa natiijana meesha lama gaarayo ilaa natiijo gaar baan nagu doonaynaa ya xal moogta mar walba waxayna culaysana doonimayno yasiru wala tu'asira wa rasuulku shay kasta fududeeya hana culaysinina hadalka culaysa ka dhiga markay qaab daro iyo inaad ku digdigatid iyo inaad caydid iyo inaad codka ugu dheeraysid horta maxaa ii naqdaa aniga wariyaa maanana wax kasta ku sameyn hatta qaarkood markay lacagta siiyaan wariyaa maadal shilinkayga cunin feeraha intaas waxay kugu leeka warshada way jeclaan maxaa iska bedelay iscadee maxaa qarsanaysaa ma mid meelaha kugu aasan hadalkaasi ogow hadda waa hadal kulul adigu ma jeceli maxaa dhahaysaa marka u fiirso hadalkaadu inuu degan yahay ka fakartay hooseeyaha noqday see u noqon karaa tusaale kale tusaale weyn adigu waa ka sii fahmi kartaa waxaad doonaysaa inaad tiraahdid arrin baa rabaa inaan kuu sheego ninka xaaladiisa waa kugu aad ku xartay inaad wax u sheegtid daftabtad ma ugu sheegaysaa ukaad waxaad leedahay codku waa codkii anigii waa anigii usluubka loo adeegsanay u fiirso waxaan ku yidhi waxaan doonayaa imaqal waxaan ku yidhi fiirso hadda u fiirso imaqal waxaan doonayaa inaan arrin kuu sheego iyo inaan ku dhaho imaqal waxaan doonayaa in aan kuu sheego
arrin noloshayda muhiim u ah adigana aan hubo inay u tahay soo laba ma kala aha waa isku hadal birsaad codkii waa erayadii laakiin soo adeegsatay inaad tiraahdo waxaan ku sheegay waraay dhigayso idig ama dhaqo wariyaa ma jawre caruurtaada biri u imo qaarkood caruurtii ku rafaadan way tuuraan saas aad samee waxaad tiraahdaa waxaan rabaa xaajigaygiyo aamus inta markaa sheegtid maxay rabtaa buu leeyahay u kaadi horta hadalka ku kala jar nab ku sii u kaadi nab ku sii u kaadi nash ku sii u kaadi jug ku sii u kaadi waxaan doonayaa xaajigaygiyo haye laakiin hadda wuxuu daba dhigtay jawaab oo sheegtay si xun oo sheegto ma ka fikriyo in aan ku sheego shay aniga muhiim noloshayda ah waa soo baraxa si fiican buu ku dhageysanay allah ku dhaartay codkaadu mar walba waa kii ashala wiilkan ku soo jiidatay laakiin qaabka uu adeegsanaysay erayada isticmaalaysa ka fiirso inta oo kaliya kugu filan haddaad hirgelisid qabow iyo naxariis xaldoon hadda nin markuu muxaadaro jeedinayo wadaad ama dhinaca kale haddaynu beerno fanaan uu heesayo waxaa laga yaabaa muxaadarada wadaadkan uu jeedinayo iyo midda wadaadkan uu jeedinayo kan inay ku saameyn og tahay qaabku u dhigay ayaa ku soo jiitay saameeyay qalbigaada ama ninkan waa gabyaya erayuu tiranaya erayadaana ku soo jiitay kuwan kuma soo jiitay ومع ذلك waxa laga inay saam yihiin laakiin qofkani cod buu yeeshay iyo qaab dabacsan buu ugu muuji tusaale maxay tahay yaani waxa weeye taas shucuurta adiga aad dareemayso codkaada ka dhex muuji haddaad adiga dambi laga galay oo dhibana tahay dambiilaha iska dhig dad badan ayagoo madluumiin ay daalimiin iska dhigaan qaabka wax adeegsanayaan walidaalka rasuulka ilaahay wuxuu nooga warramay daalimkii oo madluum isku bedela ma madluumkii oo daalim isku bedela لأن عايدة حق وصلاحين إنه عيسده ودب سماه مركع عد كذا كم وجه جبر يهاي نين كذا هرتيس حالة داس مركع مريسو شعور تدريم يسيد وحن أدب سنة يسيد حرير كسان نقضي كلا سيتشي جان أديك جرن ويدي مهويني باتهاي نين كذا منين بو نقض مسواس بدل نلاشان مقع عدو سميسات جرن كري ويدي مركع مريسي ninkaada u sheeg shucuurta aad dareemaysid codkaada iyo isticmaalkaada ka dhex muuji hamrugoodu waxaad dareemaysid hadalkaada iyo sawdkaada ka dhex muuji waa laga maarmaan intaa wixii ka dambeeyay maxaa dhacay haddii intaasi oo wax ku qaadan kari waayo ilaa dadka qaarkood waxaa jiray inay wax meelaystaan oo xaqiiqatan ba ku nacay annagu inta waxaan ku waramayna waa kaalmaantii iyo daawada laftirka haday wax tari weydo xubinka kansarka keenay waa laga takhalusaa haddii intaasi wax tari waydo kuguna sii qoslaba maxaa sameynaysaa muddada u kaade muddo imisa 3 bilood ilaa 4 bilood 3 bilood ilaa 4 bilood wixii ka dambeeya go'aankaada u sheeg inuu marka hore ku jeclaan waxa ku dareemaysaa markuu guriga imaado mashquulkiisa kadib inuu ku yiraahdo waa ku xiisay والله بالله سانا نهي كو عدو دارتو wax ku sheego dakaawa ku jecel yahay una dulqaada xaaladana hagaaji laakiin hadduu samar kasta usan dambigiisa khaladkiisa ka maqraati kacay oo mashquulka iyo jiidka iyo fiira la'aanta uu kugu hayo hadduu sanba ogeynba oo ka dareen celinayn ku raali gelinayn ku fiirinayn hatta ninkaas waa nin markaas qalbi sii jeesta xaqiiqatan sii jeesta way laakiin waxaanu ka wadlana uu mashquulay xuriyad baa siisa waxa tiri u kaadi bal wuxuu soo gurahan aragne uu ku soo noqdo guriga imaaday wuxuu kaaga sheekay jacaylkaada waxa dareemtay inuu ku jecel yahay ku soo xiisay arintaas ay tahay dowrkiisa xaliyaha ku imaada caadada jacaylka ku dhacda hawlahaas laakiin haddayso waxaan ba jirinba ninkaan sii jeedo hadda markaasi adaa noloshaada iska leh cid kalena ha u daabo fadhiisan إن شاء الله تعالى أذكر كسو جبنية بانو مع السنتين إلى هيدا حفظ هيدا دوره حرير هذه إننا هكذا كوب قول حلال يسفهم كدام بعيا توبتنا الله نقبله خير كان الله نوافق مدى الدنيا يمد آخره جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته